naag foolxumo badana waxay guursatay nin ay nacab tahay kadib subax walba intay soo baxdo ay miraayada horteed soo istaagto sawirkeeda markuu u soo baxo ay waxay dhahdaa axsan wuu istaahilaa Soomaalida hadii ay aflaanta ku arkaan qof dhintay way ilaalinayaan hadii uu neefsanayo ama uu isdhaqaajinayo haduu indhaha kala qaado ama uu neefsado waxay leeyihiin fiiriya wuu dhaqaaqay been uu noo sheega ka waran war anaga waxa rabnaa inuu toos u dhinto wax walba bilow ay leeyihiin maxaysan horta riyada bilow u lahayn waxaan la arkaa ana ordaayo 10 qofna soo daba eriyenays okay bal istaaga aan wada hadalno waxa laga yaabaa mushkilada in xal loo helo warnaga aamus maxaa ardada akhlaaqda xun gurigeena niga soo tagoonay familkeena iyo ilmeena sida adiga wax idin baro aamus ha anaga nasiina qabno miya marka anaga waxa kaaga soo tagoynaa hurdadii internetkii cuntadii iyo wax walba fiican kaaga soo tagoynaa waxaan u soo socodnaa casharka oo wajigaada camal ina bar ducada 2020 inaan duceysto waaye ilaahayow shaqeysan maaye xoolaysii ilaahayow cibaadeysan maaye hay cadaabin ilaahayow guursan maaye ubad isii saan ha isoo fiirnina aamin dheh aamin subax wanaagsan markuinteeda ka kaxee waa waqti dambe ka kacnaya yaray 4 saac loo socdaa waxa ay qabatayna ma lahayn ka kaxee saaxiibay maanta ina balan leenahay ma ilowday 4 saac waa fiidiyoon ma ka hay sabab too many thoughts on my mind waxaad awoodaa in aad gadatid guri laakiin ma awoodid in aad gadatid wadan waxaad gada kartaa saacad laakiin ma gada kartid waqti waxaad gada kartaa jago laakiin ma gada kartid ixtiraam waxaad gada kartaa sariir laakiin ma gada kartid hurdo lacagta ma ahan wax walba sidaa oogeed lacagihiina dhammaan ma igu soo xawili kartaan lambarka hoos ku qoran naaga ninkeed waxay ku dhahday markaad quraacato telefoonkaaga ii dhiib qofan ka wacanaaye waxaa la sheegay saacada in ay 8 saac marayso asigana ilaa ay hadda uu quraacada u fadhiyo mudane good waxbare hadii uusan hal macalin maadiyaalka dhan dhigi karin sidee arday yar oo masaakiin ah maadiyaalka dhan ku bar karaa adduunka waxa ugu xun qof aad hal eray oo English ah ku dhahday oo hadalko dhan English u bedelay wallahi waxa ku qabanayso waa kaftamaye walaalow af Soomaaliga nagu soo celi dhaqaatiirtu waxay dhaheen dhafarku wuxuu u daran yahay caafimaadka culimadana waxay dhaheen man dalaba al-ula sahara layaali qofkii doona inuu heer sare gaaro habeenkii ayuu soo jeedaa waxa ay wareerinay hadda ma soo jeednaa ama waa seexana hortay laptopka intii ali ma aragti yaa geel ma aragti haye haddana habartay ma isku dheedheela haye mobilko intii alle ma aragti asine yaa dooli arki maanta habartay saamay bakaaga dhagan tahay waayahay haa ee horta fiiri haday suuqiya ka soo adeegi lo aa ka soo adeegti waxa isku dayay sida ajaanibto kale inaad sameeyo filimna aa fiirsado horena daanga aa ka cuno laakiin mushkilada waxay ka taagan tahay filimka intuusan bilaawanin aan badaangadii dhameeyay gacantayda kuma jirto wallahi habartay saaka markan soo kacay waxa go'aansaday wax walba nolosheeda ku saabsan inaa bedelo ma sha Allah gabartay ii sheegba maxaa bedeshay ra'yigayga bedelay hurdadayda iskiiga laabtay maalmahan tagtaagaaga waa maxaa kugu dhac walaalay oo wadnaha ii qaban jirtay waa ka daalanaya waa ka heesa dhacay ma fahantay wax laga daala ma arki jirno adiga
iswalwalaaqole maa ku jiri karnaa 24 saac warayga kaxee